halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga dhageysanaysaan kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da waa aroornimo Jimcaha 9 Febraayo sanadka 2018 saacadu waa 7 aroornimo Afrikada Bari. qodobada barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu kalsooni ku qabo in muddadii uu hore u qabsaday ay ahayd 2 sano in lagu soo afjarayo dagaalka ka dhanka al-shabaab. 2 sano qabsan waa dad waxaan aaminsanahay insha Allah inuu yiraahdo ilaasan dalka aan mara badan aan ka xoreyno shabaab ciidankii la diyaarsan yahay waxaan rabnaa shabaab iyo argagixisada inaan ka ciribtirno Soomaaliya muddo kooban oo aan qabsanay 2 sano gudaheeda. Mareykanka iyo Ruushka isku diidaan wixii laga yeeli lahaa colaadda Suuriya. Waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan anagu dharkii aakhirna kale meesha ku yidina dad baa nagu yiri hidiya dhaqanka ku daro kuma kollay anigu kuma dari kara baan idhaa akhriya duun isma garab gelin kara baan board kuma wada qori karo marka waxaan loogu soo hagaagayaa dharkii aakhiro labiskii aakhiro waa dukaan ku yaala magaalada Jigjiga oo lagu iibiyo labiska dadka dhintay oo kaliya. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duubaha wadda leedmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdinaasir Saxasaxo. mahadsanid geele. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama dalka Suuriya ay gacanta ku dhigeen 2 xubnood oo ka tirsan unug xagga gowracista muwaadiniinta reer galbeedka u qaabilsan kooxda Daesh kuwaas oo haysta dhalashooyinka Britain ah. nimankan oo ka yimid magaalada London ayaa waxa aqoonsigooda qof ahaaneed xaqiijiyay sirdoonka Mareykanka iyo Britain oo loo ogolaaday inay arkaan. suuqa saamiyada Aasiya ayaa sameeyay hoos u dhac weyn kadib midkaasi la mid ah oo ku yimid sayladaha Mareykanka maalintii Khamiista. tusayaasha Nikkei ee Tokyo iyo kan Hang Seng ee Hong Kong ayaa sameeyay hoos u dhac 3%. saamiyada Mareykanka ayaa hoos aaday wax ka badan 10%. saraakiil ka tirsan Kuuriyada Waqooyi oo ay saaran tahay cunaqabateynta xagga socdaalka oo caalami ah ayaa u safray dalka Kuuriyada Koonfureed kadib ogolaansho laga helay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay uga qayb galaan ciyaaraha Olombikada oo dalkaasi ka bilaabanaya maanta oo Jimco ah. dadka ka qayb galaya waxaa ka mid ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wakaalada wararka ee Reuters ayaa heshay xogo aad u faahfaahsan oo la xiriira dilwadareed loo geystay dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingya ee dalka Myanmar. baaritaanka wakaalada ay sameysay awgeed ayaa lagu xiray 2 ka mid ah wariyaasheeda. 2 qof oo Rohingya ah ayaa waxa qoorta faash uga jaray dadka buudistayaasha ah halka inta kalena ay laayeen ciidamada militariga sida ay warbixintu qortay. dowladda Philippines ayaa beenisay in 16 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ee helicopterska oo ay ka soo iibsanaysa dalka Canada in lagu la dagaalami doono kooxaha kacdoonka ka wada dalkaasi. saacado kadib markii uu dhacay heshiiska kala iibsiga ayaa waxa la sheegayaa in dowladda Canada ay ka fiirsanayso beeca cabsi laga qabo in diyaaradahani loo adeegsado qaab qaldan awgeed. ugu dambeyntiina cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Edinburgh ayaa markii ugu horeysay bacrimiyay ugxaanta taranka bini'aadamka. kooxdani ka socota dalka Scotland ayaa sheegay in ugxaantani ay gacan ka geysan doonaan in dadka da'da yar ee qaba cudurka kansarka ay taran heli karaan. warkiina waa naga intaas. aad ayuu mahadsan yahay Cabdinaasir Saxasaxo oo nala socodsiinayay warkii caalamka. dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan dhameystay sanadkiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu xukunka dalka la wareegay Febraayo sanadkii la soo dhaafay ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya dalka. haddaba qayb ka mid ah wareysigaasi ayuu madaxweynaha waxa uu kaga hadlayaa dagaalka ay dowladdiisa kula jirto xarakada al-shabaab, ciidamada Soomaalida ee ay taageeraan wadamada shisheeye iyo duqeymaha ciidamada Mareykanka ay ka geystaan qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya. madaxweynaha oo u warramay wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa ugu horeyntii waxa uu ka hadlayaa sanad kadib waxa uu ku qiimeynayo waxqabadkiisa.
anigu waxaan dhaxlay 3 arrimood oo aad iyo aad u adag madaxweyne ugu horreysay saasoo kale intaasaan qiyaas ayuu dhaxlay waxay ahayd dad ku dagaal ayuu ku jiraa muddo 10 sano dagaal ayuu ku jiro oo shabaab kula jiray qaraxyo badan iyo dhimasho badan iyo qax badan iyo abaaro badan oo ay koosgaraysay ama abuurtay colaadaas tan labaad waxay ahayd dhaqaale xumo institutionska dhaqaalaha oo aan dhisnayn intii dhaqaale la-aanna dal lama maamuli karo waa adag tahay tan saddexaadna systemkii dowladda oo aad u jilcisan oo aan dhammaystirnayn oo hadda weli dhismihiisa ku jira saddexdaasna waa saddexda runtii dowladuhu ugu kala duwan yihiin muddo 2 sano ayaad qabsatay inaad ku soo afjarayso colaadda al-shabaab sanad kamida waa uu tagay ilaa xaggee gaartay aad isleedahay 2 sano qabsana waa bad waxaan aaminsanahay insha allah haddii yiraahdo iwaasan dalka in aan maro badan aan ka xoreyno shabaab muddo badan yaa dagaalkan socday dagaalkan runtii waxaan isleeyahay iyada laftigeeda 3 arrimood yaa asaas u ah in laga adkaado shabaab kow waxaa weeye dowladdu horta inay tahay dowlad stable ah oo the system stable ah leedahay waxasiloon macnaheedu ay tahay wada shaqayn dhexdeeda ay leedahay oo uusan jirin wax caqabadaha iyo wax khilaafaad ah maxaa yeelay marka dowladdu khilaafaad dhex yimaado waxaa khasab ah inay ka faa'iidaystaan oo inta laisku mashquulsan yahay ama dowladuhu isbedelaya oo dowlad cusubnaanayso inay ka faa'iidaystaan tan labaad waxay tahay oo looga hortagi karo looga adkaan karo keliya maaha qori caaradiisa waa in dowladda ay wada shaqayn fiican leedahay shacabka soomaaliyeed laakiin mudan madaxweyne markii la arko madaxweynihii dalka oo tuuto xiran dadka soo hor istaaga ugu baaqa in la dagaalamo al-shabaab la iska celiyo miyaysan ka dhignayn in jawaab degdeg ay ka timaado waxay ka dhigan tahay dhiirigelinta ciidanka iyo diyaargarow ay ka dhigan tahay hawshaasna meel fiican ayay noo maraysaa ciidankii waa diyaarsan yahay waxay u baahan yihiin qalabka u baahan yihiin qasbiya maaha inay dhammaystiran yihiin laakiin dee waxay ku welgan lahayn waa haysanaa haddii la yidhaahdo dhismaha ciidankaad soo hadal qaaday shirkii london waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa ciidanka sida loo qaybsanayo ma ku qanacsan tahay in maamul goboleedyo loo qaybiyo ciidamada qalabka sida waxaan rabaa inaan si cad aan u qeexo tirada ciidanka iyo sida ugu galayaan ciidankan waxa weeye ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed hal taliyuu leeyahay taliyahaas yaana amar ka bixinaya qaybaha meelahay kala joogaanna isaga amar ka qaadanaya macnaheedu waxay tahay isaga magacaabaya isaga mushaharada annaga mushaharada bixinayna marka meelahay kala joogaan xun weeye bacdama dee qaabkii dagaalkii isbedelay oo waxaan la dagaalamay ay yihiin cadow nagu dhex jira taasaa keentay inaan isu diyaarino qaabkaas aan u habayno ciidanka qaabkaas ciidanka ciidamada marka laga hadlayo dowlado badan oo ciidamada soomaaliya usoo tababara waxaa ka mid ah ciidamada imaaraadka ay soo tababaraan ciidamadaas yaa gacanta ku haya ciidamadaasi runtii waxaa tababara imaaraadka bixiya mushaharkooda iyo qalabkooda xero layidhaahdo jawaabulad ayay ku jiraan insha allah haddii la yidhahdo ciidamadaasi waa ciidamada aan u isticmaali doono howlgallada soo socda aan ku wajahayno shabaab dowladdiina waxaa ciidamada caawiya dowlada soomaaliya saaxiibla ah maraykanka oo ciidamada intiisa badan caawin fiican siiya waxay fudhiyaan duqaymo diyaarado aanay cidno wadin waxaa jirta in shacab badan la sheegay inay wax ka soo gaareen amaradaasna ama waxbaad ka ogtahay mararka qaarna adigaaba bixiyaba sideed arrintaas uga socotaa duqaymaha waa dhab waa bateen waana sii badan doonaan maxaa yeelay waxaan rabnaa shabaab iyo argagixisadu inaan ka cirib tagno soomaaliya muddo kooban oo aan qabsanay 2 sano gudaheeda marka haddee lagulama dagaali karo keliya ciidanka dhulka keliya waa inaan helno ciidan dagaalku sidiisana dee dhibaata waa laga yaaba inay daba socoto waxay u xaqiijiyeen maraykanka aad waa lagu dagaalayaan in diiradooda inay tahay meel ku aadan meesha ay joogaan ay yarayaan ama aysan jiraynin dad shacaba ku dhibaatooda kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo waraysi gaarsiiyey b b c da waxa uu waramayay wariyaha b b c da cali nuur salaad waraysigaasi oo dheer waxaad ku maqli doontaan idaacadaha dambe sidoo kale barta aynu facebooka ku leenahay ayaad ka daawan kartaan qayb kale oo ka mid ah
madaxweynaha uu kaga jawaabayo su-aalaha dhegeystayaasha. Dhegeystayaal badan ayaa ra'yigooda soo dhiibtay, waxaana ka mid ah Maxamed Nuur oo jooga Afgooy. waxa uu yiri waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay hadda cagaheedii ku istaagtay, waxaana leeyahay buu yiri wax walba waxaa ka muhiimsan ammaanna waan haysanaa. mahadsanid madaxweyne. balse fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba Cabdiraxmaan Cali Cumar oo jooga Jowhar. waxa uu yiri dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirta al-shabaab waxaa weeye oo keliya afka ka sheeg, waxayna haatan qaban ma jirta uu yiri dagaalka ka dhanka al-shabaabna meel ma gaarin oo weeraro fara badan ayay geysteen, fariisimo ay ku sugan yihiin amisom ayay weerareen, marka qaarna dilal qorshaysan ayay ka furiyeen caasimada Muqdisho ayuu yiri. marka anigu waxaan dhihi lahaa dagaalka al-shabaab ma ahan mid lagu soo koobi karo sanad ama 2 sano, waxay u baahan tahay dadaal iyo qorshe adag in lala yimaado lana taageero ciidanka xoogga Soomaaliya. aad ay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha ra'yigooda soo dhiibanayay. waa hagaag haddii aan eegno dhanka iyo Suuriya iyadoo warar kale oo Soomaalida ku saabsan inoo soo socdaana xulafada uu Mareykanka hogaamiyo ayaa duqeymo aan horey looga baran waxa ay ku qaadeen ciidamo daacad u ah dowladda Suuriya bariga dalkaasi, waxaana duqeymahaasi ku dhintay qiyaastii 100 askari oo daacad u ah dowladda Suuriya. afhayeen u hadlay xulafadaasi Mareykanka uu hogaamiyo ayaa waxa uu sheegay in ciidamo aad u hubeysan ay weerar ku ekeeyeen goob ciidamo Mareykan ah ay ku tababarayeen ama ku taageerayeen xoogaga la baxay SDF-ta ee Kurdiyiinta u badan. dowladda Suuriya waa ay cambaaraysay weerarkaas, waxayna ku tilmaantay dambiye dagaal. Ruushkana waxa uu leeyahay Mareykanku waxa uu doonayaa inuu la wareego hantida Suuriya. wararkii ay BBC-da arrintaasi ka qortay waxayna soo koobaya Ahmed Badar. dagaalyahanada gacan saar kale leh dowladda Suuriya ayaa isku dayay in ay dib ula wareegaan dhul imika ay gacanta ku hayaan Kurdiyiinta. goobtan ayaa ku taala gobolka Deir ez-Zor oo ah gobol qani ku ah shidaalka iyo gaaska, islamarkaana ay mar gacanta ku hayn jireen kooxda la baxday dowladda Islaamka. muddo 2 sano ayaa waxaa mudnaanta reer galbeedku ay ahayd sidii ay ugu adkaan lahaayeen kooxda IS, balse iyadoo kooxdii la baxday khilaafada Islaamka ay sii dhammaanayaan ayaa waxaa soo baxaya dhinacyo cusub oo iska soo horjeeda, waxaana laga cabsi qabaa in iska horimaad toos oo dhexmara Ruushka iyo ciidamada Mareykanka ee Suuriya ku sugan. xukuumadda Moscow ayaa taageerta dowladda Suuriya, waxa ayna sii xoojinaysaa ololaha ku aadan sidii ay dowladda Suuriya dib gacanta ugu wada dhigi lahayd guud ahaan dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa si kulul u cambaaraysay duqeymaha uu Mareykanka ka fuliyay gudaha Suuriya. bayaanka Ruushka ayaa waxaa lagu sheegay in Mareykanka hadafkooda ugu dambeeya uusan ahayn inay ka taqalusaan kooxda IS, balse uu hadafkoodu yahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen goobaha raasimaalka dhaqaalaha. dhanka kale Mareykanka ayaa waxay taageereen baaqa qaramada midoobay ee ah in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hakiyo dagaalka Suuriya. hay-adaha gargaarka ayaa waxay sheegeen in dagaalka uu la hakiyo muddo bila ay fursad siinayso in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka sida aadka ugu baahan. ku-xigeenka afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Farxaan Xaaq ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la isku dayo in xabadda la joojiyo. We want to make sure that there's a cessation of hostilities. waxaanu doonaynaa in aan xaqiijino in xabad joojin ay ka dhalato qaybo badan oo ka mid ah dalka Suuriya si aan gargaarka bini'aadanimo u gaarsiino dadka u baahan, isla markaana aan u daadgurayno dadka aadka ugu baahan gargaar caafimaad. arrimahaasi haatan ka hor dhowr jeer ayaan samaynay, mararka qaar waa ay shaqaysay, mararka qaarna ma aysan shaqaynin, balse waxaa la gaarayaa heer arrintaasi aad loogu baahan yahay. Gotten to one of the points where it is a crucial point. balse dowladda Ruushka ayaa si weyn uga soo horjeesatay hindisaha xabad joojinta. safiirka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay Basila Nabenzia ayaa waxa uu sheegay in hindisahani uu yahay mid aan suuragal ahayn xilligan. waa inaad fahantaa in arrintaasi xaqiiq ahaantii aysan suurtagal ahayn. annagu waxaanu jecelnahay inaan aragno xabad joojin dhaqan gashaa iyo in gebi ahaanba lasoo afjara colaadda dalka Suuriya, balse argagixisadu anigu ma hubo in ay la qabaan oo ay ogol yihiin hindisaha uu Mareykanka soo jeediyey. codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii wariyaha BBC-da Ahmed Badar uu ka diyaariyay colaadda dalka Suuriya. halkan nalaga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
hagaag wararka Soomaalida haddii aan u soo laabano kalluumaysatada ku nool xeebaha Puntland ayaa ka cabanaya doonyo iyo maraakiib xaaluf baan ku haya badda kuwa oo sida ay sheegayaan xitaa horey u sii qaadanaya shabaagta iyo qalabka kale ee ay badda dhigtaan kalluumaysatada kalluumaysatadani ayaa ku eedeynaya maamulada Soomaalida iyo ciidamada reer galbeedka ee xeebaha Soomaaliya in ayaan wax weyn ka qabanaynin sidii loola dagaalami lahaa maraakiibta iyo doomaha sharci darrada uga kalluumaysanaya xeebaha isla markaana dhibaato u geysanaya dadka kalluumaysatada ee deegaanka kuwa oo ay sheegaanba in ay mararka qaar rasaas ku furaan dadka kalluumaysatada ah warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa Garowe nooga soo diray wariye Axmed Cawil Jaamac dadka ka jilaabta badda ayaa ka cabanaya jariif kala tagaya qalabka ay badda ugu ugaarsi tagaan waxa ay sheegeen in ay arrintan xanuun ay ku hayso maadaama ay kaliftay in ay hadda aysan badda gelin maxamed mursal muusanaga la yidhaahdaa si ahaantayda waxaa layga qaatay qalabkii aan badda kaga shaqaysan jiray oo jilbo iyo shabaaga baddana ma aado waxaan ku shaqaysan jiray waa layga qaatay oo doonyahaasa iga qaatay haddaan ka doono aadana xabad baa laygu jawaabay maxaa ku xaqiijinaysaa in ay doonyaha aad sheegaysa ay ka qaateen waxaan ku xaqiijinayaa awalna hore iga qaadan jireen oo qalabka wayga goyn jireen oo baraawista ii reebi jireen markii ay qaataan waxana meesha aaga waa ka cararaani arrintan ayaa cabashadeedu ballaaratay muddooyinkii dambe qaar ka mid ah hay-adaha u doondaloolana waxa ay sheegayaan in malaayiin dollar oo badda Soomaaliya laga dhacay ay jiraan waxaa kaloo iyana arrintan cabasho ka muujiyey iskaashatooyinka xeebaha ka dhisan sida uu soo jeediyey gudoomiyaha iskaashatada degmada Ayl Maxamed Siciid Waabari ogtiin wadanka abaar baasan baa ka dhacday dadka miyiga jooga magaalooyinka ku soo guureen ninkii qoysaha laba qoys oo kala family ah ku soo guuray oo la degan qalabkii uu deynta ku qaatay qalab wuxuu qaadanayaa sidii laba xisho oo kala $700 $1,000 $600 budeen ku soo qaadanaya qalabkaasna uu dhiganaya subax markuu isdhawo tago wixii khayr kala soo baxna wuxuu wax la sameeyo waa la qaadanaya already waa waay meesha ku waayay ugu tagi may si leef awar marka doonyahan ma kuwa sharciyeysan ba hadaad ka warqabtaan mise waa kuwa aan sharciyeysan badda iyagu sidaas baaranay intooda badan sharci ma wataan inta la qabto oo kale oo gacanta lagu dhigan ciidan ku dhigaanina warqada ay dhahaan Puntland baa noo soo gooysay bay wataan oo xad dhaafa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa horey u sheegay in ay arrintan masiibo qaran tahay maamulada Soomaaliya ka jira dadka qaarkii waxa ay ku tuumaan in ay doonyaha wax jariifa qaarkood ay siiyaan waraaqo ogolaansho inkastoo madaxdu ay beeniso arrintaas qayladhaantan ay soo jeedinayaan kalluumaysatadu waxa ka marakacaya gudoomiyaha degmada Ayl Muuse Ismaan Yuusuf oo cabashooyin badan xafiiskiisa ay soo gaareen ugu dambeyn soo gaaray waxaa kamid ah inay qalabkiiba aan caybar uga dhigeen markii sidaa loo dhigo la qaadanayo waxaa kaloo la soo gaaray inay rumaysan yihiin doonyaha iyo maraakiibta wahay dadka ay xabadla dhacayaan iyagoo iska ilaalinaya inay marka dadkii badda geli jiray maxay sameeyeen haddii sidaas dhacday dadkii xaaladooda iska adag tahay waxaa la iska daayay wixii la oran jiray libaaxaysiga ama la dhigan jiray qalabka libaaxaysiga oo la iska dhaafay idinka wax qayladhaan oo aad soo gaarsiiseen dowladda dhexe ma jirtaa 24 saac hadlaynaa waa qaylaynaa arrimahaas baa ka hadlaynaa kolle haddii dowladdu raftay waxqabadkeedu ma yaro ciidamadii dalka way joogaan karaankooda kolle dowlahaas waxbaa ka qabtaanin laakiin aadkii badda oo ballaaran iyo qalabkii lagu shaqogelayahay aada weli aan dhammaystireen taasaan macnaha in si guud wax looga qabto ciidamada NATO ee la dagaalanka burcadbadeeda ee ku sugan xeebaha Soomaaliya waxa iyana ay meesha ay ka saareen burcadii dhibaatada geysan jirtay khubarada arrimaha badaha u doondaloolana waxa ay sheegayaan haddii arrimaha jariifka ay la dagaalamaan in ay sida arrinku u dhaami lahaa waxaana arrintaasi aan wax ka weydiiyey Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane oo ah agaasimihii hore ee xafiiska la dagaalanka burcadbadeeda dowladda markaa jirtay ee ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif madaxweynaha ka ahaa ayaa codsi u sameysay u qortay UN Security Council-ka sidaas ayay ku yimaadeen mandate-koodana waxa weeye inay la dagaalamaan burcadbadeed maadaama burcadbadeed hadda ay jirto 2 sano kasta waa loo cusboonaysiiyaa iyo nabar waxaan ogahay haddaan wax isbedelin 2018 inuu ka dhacayo iyo nabar contract-kii badda ee la dagaalanka burcadbadeed waxaan dareemayaa ama ogahayba inay marlabaad codsanayaan in loo cusboonaysiiyo xalku marka wuxuu ku imaanaya cusboonaysiinta loo cusboonaysiinayo madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr inay ku daraan ka codsadaan UN Security Council-ka mandate-kooda in lagu daro in la dagaalamaan kalluumaysiga sharci darrada
codkaasi waxaa u dambeeyey warbixintii wariye axmed cawil jaamac uu ka soo diray magaalada garowe waa hagaag haddii aad dhegaystay aad maqli jirtay ama aad arki jirtay dukaan u gooni ah qalabka dhismaha ama bagaashka ay dadku ka iibsadaan waxaan maanta idiin haynaa dukaan qof nool uusan waxba ku lahayn oo inta dhimatay oo keliya ay ka labisato waa dukaan ku yaala magaalada Jigjigo oo lagu iibiyo karfanta iyo waxyaabaha kale waxaana halkaa ku dhagan boor ama tabeelo weyn oo ku sawiran yahay qof meyd ah oo la karfanay isla markaana waxa ku qoran ku soo dhawaada dukaanka reer aakhiraadka arinta waxay keentay in dad badan ay ka argagaxaan wariyaha BBC ee Jigjiga Cabdinaasir Xikam ayaa sheekada inoo hayo waxaan u taagnahay dukaan far waaweyn ay ku qoran tahay waxaanayna dharka aakhiro iyagoo ula jeeda kafanka dadku markuu dhinto lagu kafo ayaan haynaa arrintan ayaa ah mid ku cusub magaalada Jigjiga haddaba intaana gelin dukaanka ayaan waxaan wareystay gabadh shaah hortiisa ku gadata iyo weliba dadkii la fadhiyey ee rag ahaa sida ay u arkaan حسن شو محمد شعب دولنا بوركن ورهر فدنا في آخرة شغنا ما ينارك واحد داير آخرة كوقرتا ما أنت كور ما ينارك نذكر السفر ومالي بتيجي كلين بوق أيهاي سيدي هرنا ولا قصة وهذا ونبوا وحلا كسبيا نذكر قارن دارا يدبق يلا يوعي كعرّيات قارن وكاسوات كانوا كسر واريا أول ما تتعب سنة كجرتها أنا وهمين يا مالي بإله يكتسون ومالله تتعب سنة كجرتها إني الله إيمان سعد الله إيمان بارجع هذا لكن بوركي وينك كفن كان وصف ده بورك ويناي كفكان هوس فديا وانا عبسنيا ساعد ايمان نموغي انو قبل كيدعي انو واغي بري غران مايو dad badan oo naga cararayo halka ka fadhiyana way jiraan oo markay arkaan kafada toodinayana way jiraan aduu laakiin dadka kuma jirtid anigu ma diraayo xaqiiqada raamisanahay kulli in la sii qaadi waa ku tala gashay boorkan daarul aakhir loogu macdalay labiska aakhir buu ku soo kordhin karaa wuxuu ku soo kordhin karaa ninkii amal hayayna inuu sii kordhiyo ninkii amal hayayna uu ka cararo shaydaanku eriyadu ku soo kordhin karaa qolkan kafanka lagu iibiyo waxa hortiisa lagu gadaashaa hadaba dad badan ayaa ka cararashaa si naloo sheegay oo markay kor fiiriyaan daarul aakhir inuu kafanka yahay ka taga gabadhani waa gabadha shaaha maqaaxida ku gadata magacayga saddexaad jawaar farxan baa la yiraahdaa balka waran dad baan maqlay inuu shaaha ka cararo markay kor fiiriyaan meesha daarul aakhira way jirtaa kurada yaryar oo kale iyo way ka cararaan xagan maxaa lagu gadaa markay ugu dhacaan kafanka markaan dhaho hal ka ashta xagga dambe ka maraan baxsadaan kii aan ninada uu fadhiyo uu cabiyo meesha ma laakiin odayaal waaweyn hadda la fadhiya la yiri way ka cabsadaan way dhici kartaa oo ay ka faagtaan markay kor eegaan waxa dhaana xagga shaaku ma cabina xagaagan mid kale waxa yiraahdaa maqaaxidaada laga cabi maayo meesha kafanka weeyaan oo shaaka cabi jiray marka carreena soo xidhiidhi halka ma kala kulantay kiida tagay shilinkiisa ula tagay laakiin haddana ma waayo wallahi fadhiistaan adigu soo ma cabsatid maadaama subax walba hoos fadhiyo ma wallahi waxa kama cabsado Cabdullaahi Axmed Baleeda kafanku wuxuu bulshada u fududeeyaa dadka geeriyooda inay ciwaan u yahay oo degdeg u imanaya haddaan boor ku qorayn meel ka fadloo dootaba la heli maayo anigu waxaan waafaqsanahay marka inay xaq tahay dadkana ay dan u tahay waan ka baxay intaa kadib ayaan dukaankii hore u galay gabadh magaceeda igu sheegtay Xaliimo Maxamed ayaa dhex fadhida dukaanka waxaan weydiiyey bal maxaad wax kale ugu dir weydeen oo waxyaabo kalena aad uga ganacsan weydeen anagu dharka aakhirman kulay meesha ku yidina dad baa nagu yiri hidiya dhaqanka ku daro kuma kulay anigu kuma dari kara baan idhaa akhriya aduun isma garab gelin kara baan board kuma wada qori karo marka waxaan loogu soo hagaagaya un dharkii aakhiro labiskii aakhiro ee inagu ranaa kaan baan anagu ugu talagalay inaan meesha ku yidino dad baa waxay leeyihiin gabadhan cawlada ka meeshan ku qoratay kafanka nafta goor walba xusuusin bay u baahan tahay aakhiro in la xusuusiyo marka idinka dadka idin yimaada albaabkiina soo gala waa dad ree aakhiraad wuxuu doonaya waa dad ree aakhiraad wuxuu doonaya dadka fandooni baan naga noona yimaada naguna garaaca gabadhan shaah horteena ku gadata waxay tiri dad badan baa ka cararay markay kor fiiriyaan boorkan weyn ee ree aakhiraad ku qoran yahay adna maalin walba waad hoos fadhidaa marka say kuu tahay anigu waan ku qanacsanahay alxamdulilah rabbil caalamiin naftayda aan goor walba ku xusuusinaya inuu labiskaygu gaar noqon waan ku faraxsanahay ciddii ka cararina waa cid kolley aakhirade waa la wada galay maxaa looga carari kaan baa ina wada huraan oo la galayo la isku kanfee dad badan oo kula yaabo maxaad ugu qortay ku yidhahdaa ma jirtaa ciddii tidhaah maxaaban ka qortay anigu waaba nagu talagalay inaan boorka ku qortoon ku dhajiyo gidaarka inaad dukaamo badan ka suuq fiicantiin baa laga yaabaa maadaama ree aakhiraadka idinku aad wax u gadaan daartii aakhira yaan anagu u furan daartii aakhira inaan ku gadno looguna soo hagaago adduun anagu meesha kuma hayno aakhiraan ku iibinaa dharkiis aakhiraan ku iibinaa ee lama huraanka aha
codkaasi xaliimo maxamed oo iibisa karfanta waxa uu u dambeeyey warbixintii wariyaha b b c da cabdinaasir xikam ciyaarihiina haddii aan markaan eegno maanta waxaa la dheelayaa kulamo muhiim ah oo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga malaha ciyaarta ugu xiisaha badanna waa midda dhex mari doonta labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada london ee uu xifaaltanka baxan ka dhexeeyo ee tottenham iyo arsenal laacibka kooxda Tottenham Harry Kane ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ka argoosan doono kooxda Arsenal marka ay maanta wada dheelaan ciyaaraha kalena Everton waxa ay garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda Crystal Palace Stoke iyo Brighton waa ay wada ciyaari doonaan Swansea oo maalmahan la qaban laayahayna waxay la ciyaari doontaa kooxda ay ka jajaban tahay ee Burnley halka West United na iyo Watford na ay wada ciyaari doonaan oo ciyaar adag ay dhex mari doonto ciyaarta ugu dambeysana waxa caawa kulmi doona kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Manchester City oo ka hortagi doonta kooxda Leicester City halka naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da waa hagaag in ka badan 40,000 oo qof oo qaxooti ah ayaa ka barakacay koonfurta dalka Cameroon waxaana dadkaasi u qaxeen dhanka dalka Nigeria oo darisla ah dadkan ayaa ka soo qaxaya howlgal militariga dalka Cameroon ay ku beegsanayaan koox gooni goosada oo doonaysa in koonfurta dalkaasi oo looga hadlo luqadda Ingiriiska ay ka sameeyaan wadan madax banaan oo la yiraahdo Amazonia dadka ku hadla luqadda Ingiriiska ayaa ku eedeynaya dawladda ay ku badan yihiin kuwa ku hadla Faransiiska inay gacan bidxinayso wararkan waxa Nigeria ka soo diray wariyaha BBC da Isxaaq Khalid waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Cali halkani waa mid ka mid ah goobaha dadka qaxootiga ay degan yihiin magaalada Ekom waana goobta ay ku yaalaan xarumaha dhexe ee dawladda hoose ee gobolka Cross River ee wadanka Nigeria waxa ay hor muuqanaya tobanaan qaxooti ah caruur dheelaysa iyo dad waaweyn oo sheekaysanaya kumanaan qoys ayaa waxay isaga soo carareen qalalaasaha ka taagan koonfurta Cameroon waxa ayna soo miciinbideen dalka dariska la ah ee Nigeria kadib markii ay dawladdu bilowday howlgal ay ku baacsanayso kooxaha gooni-goosadka ah ee ka dhisan gobolada afka Ingiriisiga looga hadlo Rene waa mid ka mid ah dadkaasi waxaanu leeyahay waxaan kala lumnay xaaskayga iyo caruurtayda kadib markii militariga Cameroon ay burburiyeen tuuladooda dhowr qofna ay halkaasi ku dileen xaaskiisa iyo caruurtiisa oo dad kale gacan ka helaya ayay u suurta gashay inay mooto ku soo baxsadaan halka isaguna uu baadiyaha u baxsaday hase yeeshee markii dambe waxa ay ku midoobeen wadanka Nigeria si nabad ah ayaan tuuladeena ugu nooleen balse si lama filaan ayay militariga dalka u soo weerareen bulshadeena daqiiqado kadib waxaanu maqalnay dhawaaqa rasaas marka qofba dhinac ayuu u baxsaday qaarkeena 8 maalmood ayaan howdka ku jirnay qaar badan oo ka mid ah qaraabadayadana ilaa iyo hadda ayaaba la la'yahay qaar badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ayaa dhacdooyinka noocaas oo kale ah ku sheegaya halka haweenkuna ay cambaaraynayaan tacadiyada galmo ee halkaasi ka dhacay dawladda Cameroon oo ay ku badan yihiin bulshooyinka ku hadla afka Faransiiska ayaa iska fogeysay eedaha ah in tacadiyo la geystay waxay sheegaysaa in militariga uu isku dayay oo kaliya inuu ilaaliyo midnimada dalka oo gobolada afka Ingiriiska laga hadlay ka mid yihiin hase yeeshee qaar badan oo ka mid ah qaxootiga ayaa ku sheegaya in wali ay la walwalsan yihiin ku taalada dhibaatada ay u soo jeedeen sida Regina oo kale taas oo aan kula kulmay tuulada Abokim haddii aanu xorriyad helno waan laabanaynaa laakiin haddii dagaalku dhammaan waayo dib u noqon maayo sababta oo ah waxaan ka cabsanayaa askarta iyo qoryaha ay wataan haddadaas ayaaba qalbiga i xanuunayaa waan ka baqaa daryaanka rasaasta oo markaan naxo waxaan ismoodaa in aan dhimanayo ku noolaan kari maayo Cameroon oo xabad ay ka dhacayso haddii aanu xorriyad helno waan ku noqon doonaa codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii uu nala socodsiinayay wariyaha BBC-da Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyada ayaana u dambeysay idaacaddii subaxnimo uu soo saaray Axmed Badar anigoo Xasan Cali Geela ayaa halkan idinkala socodsiinayay ciddii ay wararka iyaga dhaafeen waxay ka heli kartaa barta internetka ee bbcsomali.com tan iyo 2 duhurnimo hadduu alla idmo waa BBC-da idin leh sidaas iyo nabad gelyo